بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجكيني دبك هذا xubinteeni caan baxday ee Somalitology oo aad inta badan kala socotaan TV-ga caalamiga ee Kalsan TV qaybta aynu maanta ku soo qaadan doono Somalitology waa laba qodob oo mid walba u baahan fahamkiisa qaradiisa iyo baaxadiisana wata waxaynu ku soo qaadan doonaa qaybta koowaad ama labada qaybood oo barnaamijkeena maanta wuxuu noqon doonaa sida tan qodobka koowaad oo ah haybguurka qabaa'ilada qaabka qabaa'ilada ay u haybguuraan ama ay u diga rogtaan ama ay u dal doorsadaan qodobka labaadna waxaanu ku soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hal adeega hogaamiyaha ama hal adeega hogaamiyaasha ay leeyihiin hadaba qodobka koowaad ayaynu daafur ooga dhigi doonaa barnaamijkeenan Somalitology ee aad kala socotaan TV-ga caalamiga ee Kalsan TV waxaan idin daadahin doonaa aniga oo ah Faysal Cabdullaahi Xaaji Cabdi Abrone hadaba waxaynu marka hore dul istaagaynaa faraqa u dhaxeeya qabiil iyo tol oo dadka inta badan laga yaabo inaysan u kala saafnayn ama aysan u kala soornayn waxa uu tolka yahay iyo waxa uu qabiilka yahay waa barnaamij aad u mugweyn laakiin waxaynu ka soo qaadan doonaa inta hore oo aan ku daafurayno maanta kadib waxaynu dul istaagi doonaa inaynu qodobayno oo aynu qaybo fara badan haddii Ilaahay yiraahdo u sameeyno faraqa marka u dhaxeeya qabiilka iyo tolka ayaynu markaa ku bilaabi doonaa barnaamijkeena qabiilku waxa inta badan lagu tiriyaa inay yihiin dad isir wadaag ah oo Soomaalida waxa la yiraahdaa waa wiil talo iyo wiil tagoog qofna waa isir wadaag oo waa dhiig wadaag ayuu ku yimaadaa oo qabiilku kugu abtirsadaa qofna waa talo wadaag ama waa wiil talo oo qaab talo ayuu ku yimaadaa marka qabiilku inta badan waxa la yiraahdaa waa dad isku isir ah waxaynu u baahan tahay inaynu aad u falanqeyno balse meesha inta badan u baahan in la fahmo oo Soomaaliduna ay ku dhaadato ayaynu maanta yar falanqeyn doonaa oo ah tolka iyo qaabka uu u sameeysan yahay iyo jaraanjarooyinka iyo waxa ka dhaxeeya iyo murtida iyo mahmaahyada Soomaalida ku soo aruuray qaabka tolka uu u unkamo ama uu u sameeysan yahay sida la socotaan inta badan dadka Soomaaliyeed ee dagaladooda ama ku nool geeska Afrika waxay u badan yihiin ama lagu la yiraahdaa tolweyne oo waxa jiro tolooyin dad badan oo beelo badan oo Soomaaliyeed oo dan wadaag ah oo ood wadaag ah oo tolo wadaag ah oo dhaqan wadaag ah oo intaaba ku talooba oo nidaam iyo xeerar kala dhigta oo kadib ku sida ku nagaado deegaanada ama ku tanaada marka onkanka ama qaabku inta badan ay tolayntaasi ama isku tolkaasi uu u dhaco waxa qayb ka ah kolku daaqu yaraado ama colaado ay dhacaan ama ay timaado abaaro ama ay yimaadaan waxa loo yaqaan xanuuno kala guur ayaa dhaca oo bulshada waxay sameeysaa waxa loo yaqaano geedi ama hayaankaasi marka qof waliba ama jilib waliba ama beel waliba waxay raadisaa meel biyo iyo baad ay uga hesho xoolaha marka ay dhaqato ama amniga xoolahooga uu ku badbaadayo maadaama colaado yimaadeen xanuun yimaadeen dhibaatooyin yimaadeen daaq uu yaraaday meel marka u dhaanta meesha maalinka maanta ah ay ku nool yihiin ama ay ku nag yihiin kadib guurkaasi deegaan guurkaasi wuxuu sababaa in deegaano kale lagu furto dabadeedna ay abuurmaan bulshooyin cusub bulshooyinka cusub meesha isugu yimid ama soo raacay ama daaqsinta ku kulmay ama biyaha ku kulmay ayaa halka markay ka abuurmaan nidaam cusub oo bulsho cusub bulshadaasi waxay marka loo bixiyaa ama ay magacoogu yahay ama ay qaataan waxa loo yaqaano tol bulshadaasi kuma saleysno qaabka ay u taloobayaan ama u walaaloobayaan dhalasho iyo dhiig kuma saleysno waxay ku saleysan tahay waxa loo yaqaano dani waaseto oo ah murtida halka ay unkankeeda ama buddigeeda marka hore uu ahaa halka ay ka timid dani waaseto oo ah tolayn beelo Soomaaliyeed oo la tolayo oo la isku tolayo oo la tolaynayo ayaa dani waaseto ay ka soo unkantay maamaadaasi qaabka marka kale arintaasi u dhacayso waxa qayb kamid ah dani waaseto oo maamaadaas ah waxa jilo jirto oo iyadana tolaynta ama tolka loo adeegsadaa murtida oranayso tol waa tolane barse ka taxan
tol waa tolane oo tolkani waa la isku tolay oo iyagoo kala deegaan ah oo kala meel ah oo kala isir ah ayaa haddana intay meel isugu yimaadeen ayay toloobeen dabadeedna waa la isku tolay oo waa la isku soohay barse ka taxan yani waxa weeyaan mid walibana deegaan kale ayuu ka soo jeedaa halkii uu ka soo jeeday waa laga soo hayaamay ama waa laga soo guuray maanta se garta ama arrinka ama xaaladu ama xukunkaba wuxuu ka unkamaya ama uu ka go-ayaa xeer beegtidan iminka samaysay tolayntan cusub waxaa kaloo jirta maamaha odhanayso cir tararay tol ayaa tola cir yani tararay oo dilaac uu galay tol ayaa tola yani waxaa laga hadlayaa danta tolkaasi isku xiraysa awoodda ay leedahay ayaa laga wadaa haddii cir tararo oo cir uu jeexmo in dadkan ay toli karayaan maadaama ay noqdeen dad isku dan ah oo isku deegaan ah oo isku dhaqan ah oo isku hayb ah oo isku yani hiddo ah inay noqdeen awoodooda ayaa marka waxay loo cuskanayaa inta ay laagtay in cir xataa ay toli karaan waxaa kale oo jirta iyadana mahmaayo badan oo arrintani ku salaysan oo dhinaca beeraleyda oo kale oo odhanaysa gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan oo iyadana kasoo unkantay ama hal abuurkeeda ugu horreeyay uu kasoo baxay sidaan taariikhda ku hayno markii dadku toloobeen oo walaaloobeen oo qaybna dadku waxay ahaayeen xoololey oo xoolo dhaqatay ahayn ama geeley ama looley ama arijir dadka qaarna waa beeraley qaarna waa ugaarato oo waa dabato oo qaarna waa ugaarato qaarna waa kalluumaysato marka beeraleyda oo kale oo toloobay oo walaaloobay murtida iyadana ama maahmaahda halkaa kasoo unkantay waxaa lagu tilmaamaa tan ah gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan intaa haddii aan kaga sii gudbo waxaa kaloo iyadana jirta oo u baahan inaynu si mugla u fahano qaabka ama jaraanjarta ay tolayntu ama tolku uu u samaysan yahay ama qabiilku uu u samaysan yahay qoraallo badan oo laga qoray ama dad badan oo Soomaaliyeed oo wax ka qoray ayaa jira waxaa soo qaadanaya oo reference aan soo qaadanaya professor Cabdiqaadir Salaad Doore oo qoraa weyn oo Soomaaliyeed oo jaamacadda ummadan wax ka dhigi jiray in badanna ku talax tagay dhaqanka iyo afafka iyo taariikhda bulshada Soomaaliyeed qaabka uu u unkay ama uu u sameeyay qoraallo kale way jiraan laakiin qoraalkaas aan soo qaadanaya reference-kiisa qaabka marka uu u unkamayo tolku ama qabiilku wuxuu ka soo bilaabmaya qoys qabiilku sidiisa waa qoys ballaadhay waa aabe iyo hooyo iyo caruur marma waxa dhacdo aabo iyo laba ooriyood uu leeyahay laba dumar oo qabo in xataa marka arro qoys lagu tilmaamo laakiin inta badan qoyska waxa loo adeegsadaa si mujtamaca caalamka oo aabo iyo hooyo iyo laba iyo caruurtooda qoyskaasi marka waxa hogaamiye oo ah waa aabaha qoyska markay ka tagto jaraanjartu waxay isu bedeshaa waxa loo yaqaano warasadu markaa way biirtay dadkii baa biiray wuxuu noqonayaa hogaamiyahooga ama qofka markaa lagu yani wanqalayo ama lagu jangoynayo magaca ay qaadanayaan waa abkow marka laga sii gudbo oo waraso ahayd waxaa loo isu bedelayaa jilibkan wuxuu qaadanayaa absaxan jilibkii marka laga sii gudbo haddana laf ayay qaadanayaan laftii haddana waxay isu bedelaysaa ama ay qaadanaysaa magaca ah ab isir kadib waxay isu bedelaysaa reerkani wuxuu qaadanayaa absuul reerkii haddana marka laga sii ballaadho oo dadku sii ballaadhaan oo sii weynaadaan oo sii tanaadaan haddana waxay qaadanayaan qoladii marka waxay noqonaysaa waxa loo yaqaana abka abtirsiinta marka laga hadlayo abka ayay qoladii qaadanaysaa jaraanjartaasi marka mid waliba waxay u baahan tahay in si gooni aan u falanqeyno barnaamijyadeena dambe ayaan ku falanqeyn doonaa qaabka marka tolayntaasi iyo dadkaasi ay halkay kusoo biireen ma jilibkay kusoo biireen ma waxay kusoo biireen lafta ma waxay kusoo biireen reerka ma waxay kusoo biireen qolada mid walba qaabka ugu soo biirayo iyo qaabka ay xeer beegtida u adeegsanayeen nidaamyada markaa u degsanaa qaybaha dambe ayaan kaga hadli doonaa intaa haddaan kaga sii gudbo maxaa qabiilka dooriya waxyaabaha dooriya qabiilka ee haybguurka ku keena waa maxay sida aan ka warqabno inta badan waxyaabaha qabiilka dooriya ama qabiilka uu uga guuro qabiilkii uu ahaa inuu qabiil kale u diga rogto ama uu qabiil kala noqdo waxyaabo fara badan ayaa u sabab ah laakiin halkan waxaanu kusoo qaadan doonaa 3 arrimood oo ugu dhumucda weyn ama halbowlo u ah inta badan qaabka ay beelaha Soomaaliyeed u unkameen ama u sameysmeen ama ay dib u qorashada u sameeyeen waxaa qayb ka ah waxa loo yaqaano
colaadaha lagu riiqmay colaadaha oo iyaguna u kala baxa laba nooc kow colaado ka baxsan xindaabka dadka Soomaaliyeed ama degalada Soomaaliyeed colaado ka baxsanaa sida colaadihii Abasiniinta ka iman jiray iyo colaado dadka Soomaaliyeed gudahooga ah marka waxaynu ku fooganahay ama aan si fiican u turxan bixinayna colaadaha dadka Soomaaliyeed gudahooda ka dhaca oo inta badan sababay haybguurka qabaa'ilada ku dhaco colaadahaasina waxay u sii kala baxaan ama ee dadka loo adeegsan jiray saddex arrimood way badan yihiin laakiin saddex arrimood baynu ka soo qaadanaynaa kow reerkaasi lagu soo duulay ama colaadaasi ay ku foogan tahay amaba arrinta ay ku dhacday waxay markay xeer beegtideeda fariistaan oo inteeda way aragga iyo indheer garadkeeda iyo gabaxay iyo guumkii markay isu yimaadaan waxa reerkaasi uu ku tashanaya inay yiraahdaan waynu dagaalamaynaa iyaysan gabadhi inaga harin kelmad la yiraahdo oo caan oo ilaa imika maanta la isticmaalo hadaan reer hebelnahay waxaan diyaarunay inaysan gabadhi naga harin yani raggi markuu dhamaaday hataa gabdhihii baa loo soo dhigtay inaysan gabadhi ka harin reerka marka dagaalkaasi waxa laga yaabaa inuu ku riiqmo oo ku baaba'o oo marka firxad uu ka yimaado firxadkaasi dagaalkaasi lagu baaba'ay ee jilbaha lis aastay inuu firxad ka yimaado firxadkaasi oo marka gaaro deegaano kale oo ama ka fog ama ood wadaag la ahaa halkaasna ay ka unkamaan dadkii marka dagaalkaasi ka soo baxsaday ama dhowr oday ama dhowr wiilo marka kuray ahaa ama deegaashanqaad ahaa kadib inay la midoobaan beelihii kale ay markaasi ama ay ood wadaagta ahaayeen ama way hayaanka dheer ku yimaadeen qaybta labaad ee colaadaha sababaha keena heebguurka waxa weeyaan in golahaasi ama qoladaasi ama sida xirbeegtida hore u sheegnay ay yiraahdaan waynu isdhiibaynaa si aynan u baabi'in oo ununkeena uusan u tarmin ama uusan u baabi'in oo aynu wax inooga haraan oo aynu dhaqaalihayna haysanay iyo xoolihii aan haysanay iyo mansabkeeni iyo maqaamkii nololeed si aynu u sii jirno waynu isdhiibaynaa reerkaasi isnagu soo duulaan isu dhiibaynaa dabadeed reerkaas aanu ka mid noqonaynaa marka waxaa jira xeerar ama qodobo la adeegsan jiray reerku marka uu isdhiibo oo caaqilkooga ama suldaanka ama garaad ama malaaq ama ugaas ama cidku doona ha ahaado in markaasi hogaamiyahooga laga yani la wada galo heshiis oranayo dadkaasi inay isu dhiibeen dadkaasi reerkaasi heshiis caalami ah oo xeerar leh oo qodobo leh oo aan la jabinaynin dadka markay isdhiibaan dabadeedna waxay la midoobayaan reerkii markaa Soomaaliyeed ee kale ama beeshii kale ee markaa ka awood badnayd dabadeedna waxay qayb ka noqonayaan noloshii iyo dadkii waxyaabaha marka lagu xirayo oo aysan la midoobi karaynin iyagoo oo wata waxa kamid ah maqaamkii hogaamineed haday salaadiintoodii abaanduulayaashoodii abaanwarahoogii xeerbeegtidii maqaamkii ay lahaayeen ama ilaa ummad walba ama beel walba waxay leedahay maqaam ay ku faanto oo ay ku nooshahay oo ay ku nagidahay marka maqaamkaasi waa laga wareejinayaa kadib waxay hoos tagayaan nidaamkii la wareegay ayay hoos tagayaan kaasina waa qodobka labaad ee ay beeluhu u hayb guuraan saddexda qodob ee ka hadlayno maanta aynu doonayna kan ku falanqayno qodobka saddexaad waxa weeyaan inay reerkaasi go'aan ku gaaraan siday u dhan yihiin inay ka haajiraan deegaanka ay deganaayeen oo ay sameeyaan waxa la yiraahdo dagal doorsoon uu ku dhaco oo ay dagalkii ama deegaankii ay ka guuraan dabadeedna ay u guuraan meel aysan garaneyn oo biyaheeda iyo baadkeeda aysan aqoon dadka ku noolna aysan garaneyn dadkaasi marka waxa ku dhaca hayb guuraya yani go'aanka ku gaaray inay ka tagaan deegaanada ay marayaan ama ay hayaanka ku yihiin ama ay geediga ku sii yihiin waxa yaala reero kale oo Soomaaliyeed xoolay wataan oo afarta meesi oo kala tusaalaan ama waa geeli iyo loodi iyo arigii iyo gamaankii oo fardihii iyo dameerihii isugu jira ay wataan waa dad guurayo oo udbahooga dhigahooga sita marka beelahaasi waxa laga yaabaa hadii xeer uu jiro xeer oranayo dadka hayaamaya ama deegaanada maraya ee ama ina gudbaya xeer haduu jiro reerka u yaalo inaan dadkan la taabanin waxa dhici karta inay sida nabad ku maraan oo meeshii ay ku sii socdeen ku hayaankoogu ama uu ku wajahnaa inay toos u maraan haddiise uusan xeerka deegaanka ka jirin waxa dhici karta in la boobo dadkii haajirayay ee ka guurayay deegaankooda waxa dhici karta in la boobo oo xoolihii ay wateen hadii geel fara badan wateen ilaa waa dad jabay
oo deegaankoogii kasoo tegay oo laga yaabo dadkoogii dee u diriri jiray ama dee gaashaanqaadkoogii uu habqan yahay oo qaybo meel u firxatay laakiin waxaan iminka guuraya ugu badan waa maatadii iyo odayaashii guunka iyo intii gabaxda ahayd ee awrta lagu waday iyo xoolahoogii waxaa dhici karta marka in ciidankii loogu talagalay inay galbiyaan ay gabaabsi yihiin marka in la boobaa dhici karto oo xoolihii laga boobo oo gamaankii laga boobo dabadeedna ay iska caabin ay sameeyeen iska caabintaasina ay markaa meeshay ku socdeen ay ku gaaraan marka saddexdaa qodob ayaa inta badan buddig u ah haybguurka marka laga hadlayo qaabka ay beelahu u haybguureen dabadeedna ay meelo kale u tageen waxaana inta badan marka aad dib u milacsato sooyaalka taariikheed ee ummadda Soomaaliyeed qaabka ay beeluhu isugu xiran yihiin waa naga niri waa wiil talo iyo wiil tagoog dadku qaabkii isirka ayay ku abtirsanayaan qaabna waa inaga niri talo ayay ku joogaan oo taladaas lagu wada joogaa marka beelaha Soomaaliyeed boqolkiiba 85 markaan daraasad ku sameeyay boqolkiiba 85 waa gaashaanbuur waa dad isgaashaanbuureystay waxay iska gaashaanbuureysteen colaadaha waxay iska gaashaanbuureysteen abaaraha waxay iska gaashaanbuureysteen xanuunada dhici jiray marka qabiil kasto waxaa jiro dad marka iyada sidaa ah oo la og yahay oo xeer ku joogo oo nidaam ku joogo oo ama oo talo wadaag ah ama oo wadaagnimo ku joogo ama dhaqan wadaag ku joogo qodobkaasi marka inta kaga sii baxno haddana waxaynu u galeynaa qaababka iyadana ku laran qaabka ay beeluhu ama tolweynuhu uu u diga rogto ama uu u dhalan rogmo iyadana waxaa qayb ka ah qodobkan soo socdo waxa loo yaqaano abaaraha gaadmareebtada ah Soomaaliya ama degaladeena waxaa soo maray abaar aad u fara badan oo ilaa maalinka amaanta ay jira abaaruhu waxay sababaan in dadku deegaankoodii markay xoolihii ka idlaadaan oo biyo iyo baad la waayo ay dadkii firxadaan dabadeedna bari iyo bogax meeshii doonaan bari iyo galbeed waqooyi koonfur meesha ay la haboon tahay markaa inay u guuraan ayay sababtaa abaarahaasi haddeen qayb ka soo qaadano waxaa ka mid ah abaartii khamiis abaartii liida arbaco abaartii liida liqa abaartii bastaley abaartii la oran jiray gaadhisaad abaartii dabadheer abaartii cagabarar abaartii saancuna iyo abaaro fara badan oo laga yaabo dadku inay magacyo kale u yaqaanaan abaarahaasi marka inta badan dadka ka hayaama deegaanadaasi ay deganaayeen xoolahoodiina ka dhamaadeen waxaa gaara deegaanada kale dad tiro yar oo ama maata ah ama intii xoogga lahayd ay abaarta yani ka badbaadi karaysay waxayna markaa dadkaasi ku furtaan deegaano kale oo Soomaaliyeed oo aan colaad kala kulmin oo ay soo dhaweyn kala kulmaan dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin xeerar badan oo fara badan oo gumaystuhu ka baabi'iyay oo inaga inta badan aynan arag oo xataa qoraaladii laga qoray la marin habaabiyay marka abaaraha abnaca gaadmareebtada ana waa qayb kamid ah dadku inay hayb guuraan oo dagal doorsoon ku dhaco oo ay reero kale ku biiraan wayna dhacdaa waynanu ognahay abaarihii hadda u dambeeyay inta dad ay sameeyeen ama inta bulsho ama mujtamac cusub ay sameeyeen ama magaalooyin ay ka unkameen dad Soomaaliyeed oo toloobay oo walaaloobay oo dantu ilaa hadda isku hayso qodobka saddexaad ee isaguna abuura in dadku ka hayb guuraan dadkii ay ahaayeen waxaa ka mid ah xanuunada dhaca wadankeena sidoo kale waxaa jiray xanuuno fara badan xanuunadaasi qaar waxaa lagu tilmaamo ama lagu sheegaa inay ahaayeen xilliga gumaystaha kale xanuuno la abuuray oo bil aadku sameeyay waa soo yaraada dhaafay abaaruhu laftooda abaaruhu waxaa lagu salidaa inta badan waxaa la yiraahdaa cadaalad darradu waxa ay dhashaa colaaduhuna waxay dhalaan abaaro waana wax dabiici ah meel kasto cadaalad darro ka jirto waxaa ka dhaca dagaal ka dhaco dagaaladu markay dhacaana abaara yimaado marka aafooyinka ama masiibooyinku qaybna waa qayb ay dabiici ah sida dhul gariirka iyo duufaanada iyo daadadka waa waxyaabo inta badan dabiici ah waxna waa wax bil aadanku ay gacantooda ku sameeyaan marka abaaraha inta badan waxa lagu salidaa dadka colaaduhu inta badan la laba ama colaaduhu haystaan wadamada reer galbeedka maanta dayaxa gaaray wadamadooda yani qaniga noqday bariga iyo colaadaha iyo dagaalada iyo boqortooyooyinka isu dili jireen dhulalkooda abaaraha ka jiri jiray fara badan oo lagu riiqmay oo lagu baabay
marka xanuunada qayb ayay ka ahaayeen haybguurka bulshada iyo dagal doorsoonka bulshada Soomaaliyeed ku dhaco xanuunadaasi waxaan ka xusi karnaa iyagoo badan kuwan xanuunkii loo oran jiray daacu maale oo kale oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku leedeen ku baaba'een xanuunkii loo oran jiray furuqaale oo kale isaguna oo sidoo kale xanuun aad dadku yacni Soomaaliyeed u aafeeya iyo xanuunkii loo oran jiray duumaale xanuuno kale oo fara badan baa jira laakiin daacu maale iyo furuqaale iyo duumaale waa xanuuno fara badan oo rax dadka ka siiyay oo cirif ilaa cirif bulshada Soomaaliyeed saameeyay qodobkaasi marka haybguurka qabiilada inta ayaan ku soo afmeeraynaa waxaan u gudbi doonaa qodobkeeni labaad oo ah waxa loo yaqaano hal adeega hogaamiyaha ama hal adeega hogaamiyaasha waxaanu soo qaadan doonaa hogaamiyaal fara badan oo Soomaaliyeed ayaa soo maray inta badan ka sheekaynay waxaanu soo qaadan doonaa qayb kamid ah hogaamiyaashaasi ama mid kamid ah iyo taariikh yar oo kooban oo taariikhdu waa taariikh aad u dheer oo laga geeyoonay laakiin qayb yar baan ka soo qaadanaynaa waxaanu soo qaadanaynaa qalalaasihii Gurdumi oo kale Gurdumi ama shirqoolkii Gurdumi wuxuu ahaa shirqool loogu talagalay hogaamiyihii daraawisheed Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan Ilaahay u naxariisto shirqool loogu talagalay in lagu dilo Gurdumi marka aan baaray waxay dhacdaa aaga dhagax buur balliga meesha loo yaqaano haradigeed ayay dhinaca koonfur galbeed ka xigtaa waa deegaan marka deegaan ummadda Soomaaliyeed degan tahay oo maanta la yaqaano caana oo arrimo fara badan ay ka dhaceen Gurdumi shirqoolkii ka dhacay ee loogu talagalay in sayidka lagu dilo waa taariikh aad u dheer laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa in yar oo inaga qusayso kuna salaysan yacni hal adeega ama ku dhaca qofka hogaamiyaha looga baahan yahay qalalaasihii Gurdumi haddii uu dhacay daraawish raqdi way ka guratay deegaankii waxayna u guureen meel loo yaqaano Diita oo laba geed guur u jirta Gurdumida uu dagaalka ka dhacay ama uu shirqoolku ka dhacay inta kadib waxa dhacday raggii shirqoolka u maleegay sayidka ugu talagalay markay fashilantay arintii waxay isku dayeen in waan ama lagu dayo si kale ama sabaalayn ama bulshada loo tuso wixii dhacay inay qalad ahaayeen dabadeedna sayidka iyo daraawish xaalmarin loola tago oo sidii arrinkii lagu soo afmeero waxaa la go'aansaday marka raggii iyaga ahaa ee arrintaas sameeyay waxay go'aansadeen 32 nin oo aqli iyo codkarnimo iyo karti intaba loo dhameeyay inay arrintaasi u diraan oo ay ka dhigaan guurtidii hawshan sayidka kala soo xaajoonaysay raggii iyaga ahaa markay sayidka u tageen halkii ay ahayd ay ka filayeen waan iyo arrintii dhacday in laga wada hadlo 32 koogii laba dibla loo xiray lugaha la sugu xiray dabadeedna waxa dhacday in raggii fardihay wateen la soo diray oo xakamaha loo sii daayay dabadeedna ergo loo soo diray oo li raggii waa asaas arrintii u dhacday laba dibla loo xiray haddaad doonaysaan in ragga la soo daayo waa inaad soo dhiibtaan sana buntuqa wax la orjiro qoriyii hubkii laga qaatay marka arrintii meesha ka dhacday iyo kala cararkii hub lagala baxsaday daraawiishta marka ay Gurdumi taalay hubka waa inaad soo dhiibtaan qof waliba oo 32 ka mid ahna waa inaad 100 xalaad waa in laga baxsho oo lagu madax furto ergadii marka la soo diray ee dadkii la xirxiray ee marka hore ergada ahaa loo soo diray arrintaasi dhiilada ayay keeneen dabadeedna waxa loo qabtay maalin baa loo qabtay maalintii markay ku keeni waayeen maalin labaad ayaa haddana loogu daray wuxuu waa heshiis haddana maalintii labaad markii lagu keeni waayay xoolihii iyo buntuqii la soo cisho waxaa lagu daray maalin saddexaad maalintii saddexaad markii wax guux iyo garir wax soo juuqa erge celin fal celin markii la waayay sayidka waxa uu iclaamiyay ama uu sheegay ama uu faray ciidamadiisii 32 nin in la laayo oo anuunka laga gooyo layntaasi 32 oday nin lagu dilay waxa loo bixiyay gondogooye marka waa taariikh dheer oo aan ugu talagalnay inaan ka soo qaadano qodobka annaga naga quseeyo habeenkii marka iyada ahayd ragga la layn doono ayaa waxa la sheegay rag marka golaha joogay ama laga soo tabiyay ay sheegeen inuu sayidku ku taamay oo uu yiri cashadu oo Cabaas ila ballamay caawa soo ma ahayn yani ugu dambeyntii habeenkii uu la ballamay af celintaas marka rag baa ka afqaaday oo diiwaanka geliyay kadib waxa dhacday hal adeega halka inuu ka doonayno toox yar oo sayidkii walaashii ahayd ayaa waxa ku jiray walaal ninkeeda ragga la layn doono
marka sayidkay ugu erga ahaan ugu tagtay iyadoo ka beer la xawsanayso una sheegayso inuu ninkeedu ku jira raggaasi kadibna sayidka maba aysan arage raggii ku xeedhnaa ayaa ku yidhi bi waaye yaan lagu dilayna isaga baxsan meesha marka way buraanburtay toox yar buraanbur bay tirisay oo ku ogaatay inayna meeshaan jix jirin oo hal adeeg ninkaan hal adeeg uu dhameeyay waxay tiri bilaawaha kaan daabka la hayaa hadduu idilo ninkii aniga aan ku daabnaay bilaawaha daabka la hayay ee aan dadkayga ahaa ee aniga hogaamiyahayga hadduu aniga idilo dadkiina idlaaya aakhira haddaan u dego dadka idlaaday waa dee odageydii iyo raggii kale ee la socday guurtida ahaa cabdi haddii la igu daro darajadee ka roon yacni ninkeedii haddii mar la dilay dee iyadana in la dilo ayay darajo u aragtay marka bilaawaha kaan daabka la hayay hadduu idilo kii aan anigu isku haleynayo hadduu idilo dadkii idlaaya aakhira haddaan u dego oo dadkii dhammaan way dhammaadeen ana aan aakhira aado cabdi haddii la igu daro darajo kee ka roon darajo kale maba jirtoba nolol kale adduunyada ma jirto haddii ba odageygii ama saygeygii la dilay intaa kadib waxaynu kusoo afmeeraynaa qaybtan arrintaa markay dhacday dhiilo baa-an ayay arrintii keentay reerihii laga laayay 22 qof ayaa dagaal iclaamiyey dagaalkaasi markaa wuxuu gaaray heer ilaa iyo dhulka xabashi ciidan loo soo dirsado dabadeedna si sayidka iyo ciidankiisii duulaan loogu qaado ama argoosi loogu yormaado dad badan oo markaa Soomaaliyeed ama day ku xeernaa deegaanadaasna waxay sayidku ku tilmaameen inuu yahay nin aanan nixin oo dad badan oo hal dowr ah laayay laakiin sayidku wuxuu sheegay in ay xujoobeen marka aad eegto yani waxyaabaha inta badan taariikhda sayidka oo kale ka hadlayso xujeyntaasi ama isxujeyntaasi waxaad ka helaysaa waxyaabo fara badan oo aad arkayso halkay asliyan ku taal marka gabay ayuu ka tiriyay markii lagu yiri dadka hadlaysay dadkii baad u arxami weyday yani gabay marka wuxuu tiriyay u eg waxa loo yaqaano goodin isagoo goodinayo oo ka dhigayo inuusan cidnan u aabiyeeleynin cid allaala cidii ka hortimaadana uusan u joojinayn marka hal adeega hogaamiyuhu ama ku dhaca hogaamiyuhu waa inuu mar walba ilaaliyo xayndaabka markaa hogaankiisa uu ku jiro ama dadka uu hogaamiyo ama nidaam dawladeed ha ahaato ama nidaam dhaqan ha ahaato marka inuu dadka u tuso nidaamkan inuu yahay mid adag oo laga hor iman karin oo dadku markaa sidaa ku hogaaminayo goodintaasi ayaynu barnaamijkeena markaa qodobka ugu dambeeya ayaynu kusoo afmeeri doonaa waxa weeyaanna waa uu yiri sida tan wuxuu yiri ololaha colkan wado haddaan laga ashaatoobin jidka adari loo maro haddaan laga ugaadhoobin adari waa harar magaalada harar ayaa waaga hore waxa loo jiray adari marka jidka adari loo maro haddaan laga ugaadhoobin haddaan la waayinba qof bila aadan oo nool oo magaalooyinka iyo deegaanada ku nool haddaanba la waayin namti waa goodin uu goodinaya meeshaan iyo email haddaan weerar ku ekeenin email waxa jira email bari iyo email laba magaalo marka meesha uu markaa joogay ilaa email ilaa nawaaxigaasi haddaanan weerar ku qaadin oo qof ku nool bal la waayin ilka dheer iyo luuq haddaan laga awaareynin ilka dheer sida jeclahay maraan daraasadin sameynayay waa deegaan ku yaalo webiga web la yiraahdo ayuu magaalo ku taal weeye webiga web iyo webiga daawo markay isku soo darsamaan iyo ganaane ayaa waxay noqdaan webiga Juba oo waa meel magaalada Doolow dhinaca cadceed ka soo bax kaga beegan ilka dheer iyo luuq haddaan laga awaareynin luuqna waad garanaysaa magaalada luuq ee gobolka Gedo ku taal haddaan ilaa iyo halkaasi aynu sigado kicin ajiga waa ma joogo haddaan ololku soo gaadhin dadka ajiga ah ee Soomaaliyeed ee waamo ku nool hadduu ololku soo gaadhin marka waamo sayidku wuxuu tusinayaa in marka olo muuqato dhul aad u fog oo dalku de maraakiibtan iyo doomaha iyo gawaarida iyo diyaaradahan iyo aatufkan iyo ma jirin marka waamo marka la joogo galbeed oo kale waxay noqonaysaa dhul aad u fog oo kale ajiga waamo joogo haddaan ololku soo gaadhin hadduunan ololka qudaad ku soo gaarin adduunyada haddii aanan ka shabin tan iyo awdeeglena waad garanaysaa hadii halkay ku tahay iyadana fogaanteeda ilaa awdeegla la isla gaaray nin adduunyo foofsado haddaan uunka laga waayin afartan meesi qof dhaqdaba haddaanan dunidan laga waayinba waa dunida oo dhan ruux wax xoolo dhaqdaba haddaan la waayin xoolahoodan baan qaab ku dhigayaa buulaxaar agteediya haddaan awdal laga yaacin ilaa buulaxaarood garanaysaan ilaa awdal haddaan laga yaacin qof ku noolaado aan la waayin
ooryaha axmaaradu haddaanay cadan ka awleynin xabashida ama axmaaradu dee ooryahooga xataa intay yaacaan soomaali marka la iskala tago ilaa axmaaro iyo ooryahoogi inay ilaa iyo cadan yaacaan ingiriiska eega hadduusan oogsan oo cararin ingiriis ba haddii asna uusan soomaaliyaba ka laalaaban oo uusan ka cararin agabkiyo haddii uusan qubin aaladiyo seefta agabka yani waxyaabaha uu isticmaalaya markaas uu agabka u ahaa seefihiisa aaladaha casriga oo wato intaba hadduu inta uusan qubin uusan ka baxsan haddii aan islaaxii berbera lagu abaaroobin berbero markaa dee magaalo ballaaran ahayd sidii saylac oo aada loo deganaa oo dhib yani barwaaqo badan ay ka jirto iyo magaalo aada iyo aada markaasi yani magaalo furdadeed ahayd haddaan lafteeda aanan abaare ka dhicin oo wax noolba la waayin oo aanan albaabada quflin ilxirka iyo daarta yani albaabada oo dhanta loo soo xiray ilaa ilxirka iyo daarta iyo wax oo dhan meesha iska bixin oo aynan eber noqon kobtii la istareexayay meelihii lagu dangiigsanaa lagu caweynayay tamashalaha iyo ay ka jireen oo lagu noolaa haddaan iyagoo dhanba meesha aysan ka bixin igariyo haddii aanu rag kale aqaro u hooyanin igare kolley waxaan maqlay isaguna markaa taariikhdaas abaarayay inuu ahaa u qaybsamihii arrimaha ingiriiska magaalada berbere iyo qaybo kamid a ina igare waa nin caana oo meelo badan taariikhda aad kaga helaysaan oo aanan sidii libaax wax u unungoynin sidii libaaxa haddaan inta u cartamin ama aanan u gurxamin aanan sidaan dadka madaxa ka gurin sidii libaaxa uu wax u laayo oo kale soomaaliyo idil haddaan laga imiil qaadin gebigeedaba soomaali siday u dhantay haddaan laga imiil qaadin ab uu yahaba aadmigo hadduunan eerartu diririn qof kastoo aadami ah iyo dagaalka kusoo biiraya oo aanan u aargudin raggii naga afdhowrayay raggii yani muhiimka ahaa ee annaga markaasi dee na matalayay ee la laayay ama gaadmo lagu laayay ama si kaleba lagu layn ay haddaanan u aargudin alla ilahay islaam ba ahiyo umulku waa been waxa aan sheeganaya iyo umalka waxa weeyaan waa weyraxa umalka waxa loo adeegsadaa ragga weyraxa inta badan waxa loo adeegsadaa lo-da oo kale lo-da weyraxda raggana umal ayaa loo isticmaalaa markay guhaatamayaan ay dagaalamayaan ama yani umalkayga ama dagaalkayga iyo guhaatankayga waa been oo islaamnaba ma ay haddaanan intaas samayn barnaamijkeenii dhabka hadal qaybteedii somalitology qodobkeenii aynu labadii qodob ayaynu maanta kaga hadlaynay ee ahayd haybguurka qabailada soomaaliyeed iyo hal adeega hogaamiyaha inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idin qaada dhigaya anigoo faysal cabdullahi xaji cabdi abrone xagga farsamada waxaa inaga caawiyey injineer cadaawe barnaamijka mid lamid intaan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu